xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani ayaa maanta dacwad ka dhana xukuumadda Soomaaliland waxay u gudbiyeen maxkamadda sare ee dastuuriga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. xubno ka tirsan hoggaanka sare ayaa subaxnimadii hore saaka ku waabariistay maxkamadda sare ee dastuuriga ah iyagoo dacwadani u gudbiyay gudoomiyaha maxkamadda sare Garyaqaan Aadan Xaaji Cali. markii uu soo dhamaaday kulankii dacwadda ay ku gudbinayeen ee dhex maray hoggaanka xisbiga wadani iyo waliba gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa warbaahinta kula hadlay fagaaraha hore maxkamadda xogayaha guud ee xisbigaasi wadani Maxamed Cabdullaahi Uurcadde oo warbaahinta uga warbixiyay dacwadda ay gudbiyeen iyo nooca ay tahay. waxaan runtii maanta halkan u nimid in gudoomiyaha maxkamadda sare aan qaabilo oo aan u gudbino sharciga iyo nidaamka xukuumaddu ay ku tumatay iyo qoraalkii uu madaxweynuhu soo qoray oo anagu aanu arkayna xisbi ahaan inuu yahay wax dastuurka iyo qaanuunka dalka baalmarsan ee golaha wakiilada loo gudbiyey isaga oo wixii nidaamkii iyo wixii lagu wada socday qarankani ku heshiiyey la baalmaray. sidaa darteed waxaanu runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha oo si fiican noo qaabilay si fiican noo soo dhaweeyey annagoo ku kalsoon go'aanku gaadho runtiina aan aad iyo aad ugu haweynahay inuu gudoomiyahan yahay gudoomiye ku dhaqmaya cadaaladda iyo nidaamka dalkani leeyahay aan isleeyahay wax badan baa intuu joogay uu ka soo qabtay waxaan rajaynaynaa tanna inay noqon doonto tuumadda reer Somaliland u soo celisa kalsoonidii inta badan soo celiyey intii ka harsaneyd. dacwadan ay maanta gudbiyeen xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku soo beegmaysa xilli beesha caalamku ay ka dayrinayso go'aankii uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina ay u soo jeediyeen madaxweynaha in uu ka laabto go'aankaasi iyagoo ku hanjabay haddii kale inay cawaaqib xumo beesha caalamka kala kulmi doonto xukuumadda Soomaaliland. waxayna sheegeen beesha caalamku in Soomaaliland laga baqa qabo inay go'doon siyaasadeed ka gasho caalamka haddii ay doorasho ka dhici weydo. waxaana wali cagran muranka ka dhashay soo jeedintii madaxweynuhu uu soo jeediyay komishanka iyo waliba golaha baarlamaanka in la kala qaado diiwaangelinta ay maalinimadii shalay ahaydna ansixiyeen golaha wakiilada Soomaaliland. Cali Mahdi Jibriil, telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Hargeysa.